inta badan bulshooyinka Soomaalida ayaa waxay leeyihiin hoggaan u gaar ah kaas oo mar waliba u taagan xalinta arrimaha hoose ee bulshada dhexdeeda iyo arrimaha kala dhaxeeya bulshooyinka kale. Suldaan Ibraahim Cabdullaahi Xaaji loona garan og yahay Suldaan Jeeri waa mid ka mid ah salaadiinta beesha sade ee gobolka Banaadir una dhashay beesha Hawrarsame Amaareer. Haddaba Suldaan Ibraahim Cabdullaahi Xaaji ayaa toddobaadkii tagay safar ku gaaray magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud Soomaaliya. Suldaanka ayaa waxaa safarkiisa ku weheliyay ugaaska guud ee beesha sade ugaas Maxamed ugaas Axmed ugaas Kayse iyo Suldaan Jeeri ayaa markii ay gaareen magaalada Cabudwaaq waxa ay xaliyeen arrimo badan oo ka dhaxeeyay bulshooyinka halkaasi dega. Dhanka kale Suldaan Ibraahim Cabdullaahi Xaaji ayaa si guud iyo si gaar ahba ula kulmay bulshada beesha Hawrarsame Amaareer ee dega magaalada Cabudwaaq iyo deegaanka sida weyn u soo koraya ee Bilcil iyadoona halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay. Si kastaba ha ahaatee waa kuwan dadka deegaanka oo suldaanka si weyn u soo dhaweeyay isla markaana amaanay kana mahadceliyay booqashadiisa deegaanka iyo in uu hawlo badan la xaliyay intii uu deegaanka ku sugnaa. Ka bacdigeed waxaan meeshan ka duubahayaa walaalkay oo ka yimid xamar suldaankeenni oo ah Ibraahim oo ku magac dheer Jeeri anoo Maxamed Suulaayaa waxaan ku soo dhaweeyay Cabudwaaq walaal soo dhawow waa dadkaadi waa ehelkaadi ku soo dhawow Cabudwaaq gacmo furan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan joognaa xaafadda Kowda Luuliya kuna yaala iskuulka Tawakal oo horay aad maqli jideen. waxaan ku soo dhaweynaa suldaanka ayaa maanta martiqaad loogu sameeyay. waxaan halkaan uga mahadcelinayaa suldaanka oo runtii hawlo badan nala fududeeyay inta hadda joogay. marka maanta waxay ahayd hawshanadu soo dhaweynta suldaanka inaan maanta Tawakal soo barno bilcabasana waa geyn doonaa goobo kale inta degantayna waa geyn doonaa. waxaan maanta joognaa degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. waxaan joognaa xaafadda Tawakal Kowda Luuliya Cabudwaaq. magacaygu waa Cabdinaasir Khaliif Maxamed. waxaan maanta dhex joognaa xaruntii iskoolka Tawakal ee Cabudwaaq muddo laga joogo 12 sanadood 2007 baa la aasaasay. waxaan anigu ka mid ahay oo gudoomiyaha xaafadan ah dadkii ugu horeeyay ama dufcadii koowaad ee ka baxday. maanta waxaan ku soo dhaweynay Suldaan Ibraahim Jeeri marka soo dhawow ku soo dhawow ehelkaagii tolkaagii meelo badan baan maanta marmarinay ay ka mid tahay xaafadan Tawakal qaybtii kale ee Ammaano Bilcil iyo meelo kale ay u dhimayeen waliba Barawaal iyo dhinacaas kale wax badan baa ku dhiman. marka Suldaan soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan salaameynaa dhammaan muslimiinta iyo ehelka meel kasta ku sugan yihiinba waxaan ku salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacd salaam alxamdulillaah. waa iskuulkii Tawakal weeyaan halkaani aan joogno. maanta waxaa aan la joognaa suldaankii oo aan ugu sameynay meesha fadhi maasha Allah. Suldaan Ibraahim Mr. Jeeri saas ay tahay soo dhaweyntu way badanaysaa insha Allah haddii la haydmo. waxaana xarumaha iyo meelaha dadku ay degan yihiin iyo inta waxaan rabnay inaan marmarino. halkaana waa iskuulkii Tawakal weeyaan MCH-kii buu tagay ilaa iyo Bilcilka insha Allah inuu tagaan jecel lahay. waxaan leenahay Suldaan soo dhawow ku soo dhawow bahdaadii Tawakal Primary School weeyaan meeshaan. dhanka kale suldaanka ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu bulshadiisa soo booqdo isla markaana uu u kurgalo xaaladda deegaanka isaga oo ka mahadceliyay sida wacnayd ee loo soo dhaweeyay. halkaan waxaan ka salaamayaa beelaha Hawrarsame Amaareer qaybahooda kala duwan. awalan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka xigta waxaan joogaa gobolka Mudug gaar ahaan degmada Cabudwaaq. waxaa farxad aad iyo aad u ballaaranaya tol badan oo qurux badan iyo deegaan ballaaran iyo xarumo maasha Allah waxbarashadooda ay wanaagsan tahay. ilaahay idimkii waxaan rajaynaynaa inta dhiman inay u dhameystiranto oo tacabka iyo tacliinta iyo taqwada rabbiga ilaahay uu ku siyaaday ayaan rajaynayaa. aad iyo aad baa maaragtay aan ugu faraxsanahay beeshayda ballaaran. ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayo dham Allah ka kor yeelo khayrkan Allah soo waafajiyo. waxaa martiqaad ballaaran oo isxilqaan leh oo aad iyo aad u karaamaysan ii sameeyay beelaha Hawraarsame meesha degan 8 jufo ka mid ah. waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala xoolaha iyo martiqaadka iyo sharafta aad samayseen mid limad adduun iyo aakhiraba Allah in kugu sameeyo. xaflado kale iyo martiqaadyo kalena way ii dhiman yihiin ilaa iyo Bilcil Hawrarsame iyo meelo badan buu ii dhiman yihiin.
waan inka gadoomay beesha reer Dhiblaawo beesha reer Yuusuf gaar ahaan reer Dhiblaawo waan ka gadoomay martiqaadka intaas ka badan baan kala mudannahay waad sharfantiin waad ammaanantiin ragga isxilqaamay ragga xoolaha bixiye dhammaan dad iyo dunyada Allah in barakeeyo ilaahay ha sharfo waad maasantiin jazakallahu dad iyo dunyada Allah in barakeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh suldaan halkan waa bicil hawraarsan suldaankan ilaahay baa noo keenay ismaana aqoon مع مقع سكمان أقول وحنا ماشي وكل شيء آخر كذا وضع ما ذا وكذا ما بيع الهوراء السنة إنسان وقتي باش كذا لطي كسودو واحد نودي واحد نجودي لهاي أنت وكسودو أنت على إنه أنت هذا الوضع حاجة السلام لمان أنت هل كان شوكتو هوراء سما مرير iyo inta dal iyo dibad kala jirta dhamaan awal waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xigta awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ay mahad u sugnaatay allihii naga dhigay muslimiin naga dhigay raxim musukaaya keenay allahaas ayaa kun iyo kow jeer mahad u sugnaatay tuma kadib waxaan si mug iyo miisaan aan ugu mahad celinayaa uguna ducaynayaa walaalkay maxamed cumar farey oo deegaankan iyo tulkiisa meel badan ay joogaanba wax badan oo la taaban kara ka qabtay hadday noqoto ceel iyo hadday noqoto iskuul iyo hadday noqoto dugsi quraan iyo masaajid horumar badan oo wanaagsan oo karaamad leh aqligiisa iyo cilmigiisaba ugu hiiliyay halkan oo kalina ma ahan Garbaarey wuxuu ka sameeyay center oo fiidan iskuul caafimaad iyo iskuul iyo xarun caafimaad buu ka sameeyay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaa wiilkaas naf iyo maal horta markii waad inuu ilaahay u barakeeyo inta kadib marka xigta waxaan u mahad celinayaa soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen maandhaweeto beesha reer Yuusuf gaar ahaan reer Idow ay soo dhaweeyeen waa ka mahad celinayaa marka afraad waxaan ka mahad celinayaa beesha walaalahay reer Saleebaan oo aadan iyo maxamuud labadu isugu jirto oo matasha hawraarsama ama reer magaciisa ku sundan yahay matashana waan u mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa si mugga iyo miisaanta leh oo walaalnimada leh oo naxariista leh oo dadnimada leh oo soo dhaweeyeen zaid baan ugu mahad celinayaa aad iyo aad baad ugu mahadsantiin waan dhawahay wiilkiina ahay muqdishaan ka imid insha Allah raxmaan waana laaban doona hawshan u imaado waxba ka qabsoomay waxna way dhiman yihiin ilaahay waxaan idin weydiinayaa midnimo ilaahay waxaan idin weydiinaa cilmi iyo diin saad ii martaqaadeen oo ii soo dhaweyseen oo ii sharafteen ilaahay idin martaqaado ummadana ha idin jeclaado idinkan u soo jeclaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh suldaanka ayaa inta uu deegaanka ku sugnaa waxa uu booqday isla markaana uu booqan doonaa xarumaha muhiimka ah ee ay bulshada adeegsato sida iskuulo isbitaallo ceelasha biyaha laga cabo iyo deegaano kale